madaxweynaha waddanka Djibouti ayaa horay u tijaabiyay maamuuska iyo soo dhaweynta uu ku leeyahay dalkaasi Djibouti Ahmed Maxamed Silaanyo madaxweynaha goboleedka maamulka Somaliland. dalkaasi Djibouti ayaa horay xaflad soo dhaweyn qaab madaxweynenimo ugu soo dhaweeyay Ahmed Maxamed Silaanyo balse nasiib darro qaabkii borotokoolnimada madaxweynaha imtixaankii laga qaaday ayuu ku dhacay madaxweynaha maamulka Somaliland. sida muuqaalkan ka muuqata ra'iisul wasaaraha waddankaasi Djibouti iyo madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland ayaa xaflada ama munaasabada lagu soo dhaweynayay madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland waxa ay ka qaateen salaan sharaf qaar kamid ah cutubiyada ciidamada waddankaasi Djibouti. madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland ayaa ku dhacay munaasabadaasi qaabkii uu salaan sharafta uga qaadan lahaa ciidamada waddanka Djibouti sida ka muuqata socdaalkiisa iyo nidaamka borotokoolka madaxda lagu yaqaano. ra'iisul wasaaraha waddankaasi Djibouti ayay ku adkaatay in madaxweynaha maamulkaasi Somaliland uu isagu borotokoolkaasi la qabsado. ra'iisul wasaaraha ayaa soo jeediyay wuxuuna u tilmaamay in uu salaanta ka qaato jarnaalka loogu talagalay in uu salaantaasi u bixiyo madaxweynaha maamulka Somaliland balse nasiib darro waa uu ka dhagalaa arrintaasi oo wuxuu u socday qaab ka baxsan nidaamka madaxweynayaasha. ra'iisul wasaaraha ayaa gacanta soo qabtay dibna ugu soo jeediyay sidii uu salaanta uga qaadi lahaa taliyaha salaan sharafta u bixiyay. nasiib darro markii loo soo jeediyay sidiina salaantii uu ku bixiyay generaalkii ayuu dhaqaaq waayay madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland oo halkiisa ayuu iska sii taagnaa. qawaaniintii markuu arkay in uu ka dhacsan yahay generaalkii salaantaasi bixinayay ayaa mar labaad salaantii ugu celiyay kabacdi waa uu iska sii taagnaa. ra'iisul wasaarihii iyo generaalkii ayaa isugu tagay sidiina waa lagu dhaqaajiyay. daqiiqada ka bacdi waxaa la horgeeyay kooxda dhaqanka waddankaasi Djibouti waxaana isu hor istaagay sidii qof badow ah oo ka dhacsan nidaamka borotokoolka si aad ah ayuu u fiiriyay. waxyar ka bacdi markii uu ra'iisul wasaaruhu arkay in uunan la haysanin nidaamka borotokoolka madaxda ayuu ra'iisul wasaarihii gacanta qabtay una dhaqaajiyay guriga madaxtooyada waddankaasi Djibouti. kadar oo dibidal arrintii haddana waxaa ka hor yimid madaxweynaha waddankaasi Djibouti oo aqalkiisa albaabkiisa ku sugayay. labadaasi nin Ismaaciil Cumar Geele iyo Ahmed Maxamed Silaanyo markii ay isa salaameen nasiib darro islaantii Ahmed Maxamed Silaanyo ayaa gacanta u soo fidisay madaxweynaha waddankaasi Djibouti taasi oo ina shareecada islaamka aan ku banaanayn. Cumar Geele oo ay ahayd maalintii oo ugu maskaxda iyo diinta badnaa ayaa ka gaabsaday in uu gacanta ku salaamo marwada madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland madaxa ayuuna u gundhiyay iyadiina yaxya ka bacdi dib bay u istaagtay. Silaanyo ayaa sidaasi uu ku soo fasaxay madaxweynaha waddankaasi Djibouti waxayna hore u sii galeen guriga madaxweynaha waddanka Djibouti waxaana soo dhaweysay marwada madaxweynaha waddankaasi Djibouti oo iyadu si aad ah gacanta ugu salaantay halka uu ninkeedu diiday in uu gacanta ku salaamo islaanta madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland marwo aamina. haddaba Somaliland in ay Djibouti ugu xanaaqdo madaxweynahanagii ayaa laga dhigay dad shacaba. Djibouti ayaana bahdishay ma ka mudan tahay mar iyo labo in ay ku soo celceliyaan maadaama ay markii ugu horeysay ku fashilmeen borotokoolkii madaxda lagu yaqaanay.